maalin wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad caalamka nagala socotaan siraha ciidan ee laga helay maleeshiyaadka kala duwan ee huwanta wadooyinka iyo marinada u calaamadsan ee ay weerarada Ceerigaabo iyo Sanaag u qorshaysteen in ay mar saddexaad ay dagaal rogaal celis ah ay ku soo qaadaan waa siro hor leh oo toddobaadkan aynu ku jirno ay jeexdeen waa khariirad dagaal waxay calaamadiyeen meelaha ugu muhiimsan ee ay ka soo weerari karaan Ceerigaabo saraakiisha hogaaminaysa maleeshiyaadka huwanta ayaa qorsheeyay bartilmaameedyada ugu muhiimsan hadiiba aynu isdul taagno magaalada Ceerigaabo ama gobolka Sanaag waxaa soo gala wadooyin dhowr ah sida wadada Jidali ee Yubbe ee Hadaftimo gasha waxaa kaloo soo gala wadada Fiqi Fuliye ka timaada ee soo gasha dooxada Masagan ee markaasi Ceerigaabo halka ka soo gasha waxaa kaloo jirta wada Laasqore ka timaada oo xeebta soo marta oo markaasi muhiim ah oo halka meel ka soo gasha oo aad u muhiim ah waxay saldhig ka dhigteen Hadaftimo oo markaasi saldhig u ah huwanta Yubbe sidoo kale Carmo sidoo kale Masagan waxay qorsheynayaan dagaal ugu dambeyntiina ciidamada madaniga ah ee Garxeeshis 36 iyo sidoo kale ciidamada beelaha habar jeclo ee SSB ayaa isha ku haya kooxaha maleeshiyaadka huwanta dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ay wadaan dhinaca kale ciidamada qaranka Somaliland ayaa iyaguna qaba amar buuxa oo ku saabsan in cadow kasta oo soo weerara dadka iyo deegaanadaba ay difaacaan oo ay ka garab dagaalamaan ciidamada madaniga ah